السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا على عبد شكرية شنال قوتي building construction and design ما أنت دو إلهي يقول لي وحان برر الناس سؤال خصابسا internship questions kuwaasoo ka kooban civil engineer iyo cotton marka cashirka aan bilaabanayna waa kan su'aalaha marka welcome to possible question of internship marka su'aalaha ugu macquul galsan ee laga weydiin karo internshipka marka su'aalu waa kuwan marka su'aalaha lagu weydiin karo marka ayaan kusoo dhawaanaa marka internship question su'aasha koowaad waxay leedahay what does it mean 1 2 3 in the concrete concrete may you tell us the proportion of cement sand aggregate C30 C25 C2 and C5 grade of concrete marka wax kale kama dhigne waxa ka dhigan tahay 170 2 sand iyo 3 aggregate marka C5 waxay u taagan tahay 146 oo mid walba marka waa 70 sand aggregate tirada ku qoranna marka waa ta meesha ku taala marka dhammaan tirooyinka ku qorqorani waa ka gebi waa 146 and 124 and 123 123 inta dambe waa isku wada mid laakiin waxa kaga duwan taa hore iyo marka C15 su'aasha labaad waxay leedahay what type of bunging do you use in this site ka bunging-giga isticmaashay eeda ma volume baad isticmaalay bunging-giga volume-ka ah mase bunging-giga weight-kaad isticmaashay bay leedahay marka jawaabta xaggan aad ku arki waxaad oran kartaa adu ka badanka la isticmaalo waa bunging volume because it contains water and 80 unit meter cubic marka waa bunging-giga laga sheekaynayo kan yar baa la isticmaalaa ee volume kale su'aasha saddexaad waxay leedahay why the ground floor slab is isolated from the grade beam when casting them casting-giga marka la sameynayo ground floor slabka sababta looga dhigo maxaa la dhahaa isolated sababtu waxay tahay high capacity wile it has high capacity ayuu leeyahay marka waa su'aasha saddexaad su'aasha afraad waxaan naqaanaa is known that the general ground floor slab support and fractural strength marka waxaan naqaanaa ground floor slabka wax culays inuuna ku dhicin oo wax dhiba ku imanayn marka waa markan dhulka joogno so what is the use of reinforcement in the ground floor slab haddana iyadoona wax culays iyo dhib oolin ayaa haddana had iyo jeer waxa la isticmaalaa reinforcement-iga maashka marka sababta loo isticmaalo waxay tahay wax kala maahine wax kale oo culays ma qabanayaan to prevent crack development had iyo jeer inay ka hortagaan dilaaca ku iman doona guriga and completion to the load marka su'aashaasina waa su'aal muhiim ah had iyo jeerna la isweydiiyo su'aasha shanaad waxay leedahay what cause of segregation kala bixitaanka honeycomb-iga of the concrete and how you to prevent each of them marka qaabkeed ugu hortagi kartaa segregation cover by marka segregation-ka iyo honeycomb-iga maxaa sababa sidee looga hortagi karaa way su'aashu marka segregation is covered by had jeer waa lack of water meesha markii biyuhu ku yar yihiin segregation baa dhacaya iyo over vibrating-igu markuu ku badan yahay baa honeycomb-igana sababay vibrating-igaasna wuxuu sababayaa marka inay yani una isdhex gelin hawo iyo meesha inay gasho marka we prevent proper mixing duration of time marka sidanaan ugu hortagi karnaa how do we prevent each of them haddaba sidee ayaan u daaweyn karnaa ama aan ugu hortagi karnaa labadaas meena dhandhicin we prevent the proper mixing duration of time marka xilliga la joogo biyaha iyo sibirka iyo dhammaan aggregate-ka dhammaan waa inaan isleekaysiino oo aan kala dheerdheeraysiinin oo si fiican aan u wada leekaysiino marka waa qaabka ugu fiican su'aasha lixaad waxay leedahay what is the maximum height of releasing concrete maximum-ka ugu badan ee concrete mixiga la sii daayo muxuu noqonayaa casting-giga marka la sameynayo column-ka to prevent segregation of concrete marka su'aashan waxay ku xidhan tahay concrete mixing tape waxa aad waxaynayso casting may be human haduu yahay it may be 30 cm ayuu noqon karaa by curing it may be 50 cm ayuu noqon karaa it contains aft control marka labadaas su'aalood ayaa ugu macquul galsan in loogaga jawaabo su'aasha toddobaad waxay leedahay what is the difference between expansion joints and movement joint hadiya jeer su'aalahan waxaa lagu dhigtaa RCC3-ga and why provide them RCC structure maxaan sameyn marka expansion joint markaan sameynayno it is formed by space between the two structure movement joint is formed by overlap jeer expansion joint-iga wuxuu former garaya by space-ka two structure laba structure space-ka u dhaxeeya ayaa la dhahaa movement joint laakiin it's formed by overlap meelaha overlap-ka ayay ka samaysantaa to prevent strip settlement marka su'aashaas ugu macquul galsan in iyadna lagaga jawaabo what is the use of development length in RC element is element su'aasha maxaa marka loo isticmaalaa development length is the bend length of the bar mostly used and code 8 and corner part badanka la isticmaalaa marka meelahaas loo isticmaalaa waa su'aasha sideedaad
su-aasha sagaalaad waxay leedahay what is the negative reinforcement and positive reinforcement can you show us on the site marka su-aasha ugu muhiimsan had iyo jeer ay ardaydu isku qallaan negative reinforcement iyo positive reinforcement maxay yihiin maad noo tilmaami kartaa marka negative reinforcementiga islaabka marka la joogo calaamadana kuu muujinaysa calaamadan aad meesha ku aragta had iyo jeer birahan waa kuwii toobka ah had iyo jeer halkan waxaad ku aragtaa birihii baa yaala maashkii halkan waa birihii toobka ah biraha toobka ayaa had iyo jeer waxaa la dhahaa negative reinforcement bar baa la dhahaa kuwa hoosena bottom ama positive bar are positive marka negative reinforcementigu there are a bar used to resist the negative momentumka negativeka ayay had iyo jeer naga caawiyaan most of the time there is it's found marka had iyo jeer waxaa laga helaa supportiya of the beam meelaha supportiga beamka they are placed on L by 3 na waa lagu jaraa span lengthiga from the center of the column the top where the bending momentum is maximum had iyo jeer bending momentum kuna waa high and positive reinforcement su-aasha sii socota these kind of bars are mainly used and to resist and positive marka positive reinforcement and had iyo jeer is mostly at the midspan ka laga dhigaa sababtoo halka wax dhibi ma jiro of the beam and the positive bars are placed at the midspan had iyo jeer positive barka midka la dhigaa waayo halka tension ma jiro positive marka intaan bay kaga duwan tahay what is the function of the lean concrete su'aashana waa su'aalaha ugu horeeya bilowga la isweydiiyo functionka ama shaqada uu qabto lean concrete ku waa maxay marka functionka ama lean concrete ka shaqadiisa uu qabto waxa weyn to resist the corrosion of the ground floor had iyo jeer waxyaalo badan buu qabtaa laakiin resistance-ga corrosion-ka daxaliisiga ku imanaya to create soo abuuro falaad load su'aasha kale badanka lagaga jawaabi karo waxa weeyaan had iyo jeer guriga marka la sameeyo humidity rise carreero qoyan oo waxa laga yaabaa dhulka biyihiisu qoyan yahay had iyo jeer inuu hoosta ka keeno muus ama uu biyo yar ka keeno biyaha yarna had iyo jeer u daw yahay si ayna birtu u daxalaysanin way ileen guriga dhan had iyo jeer waa foundationka meesha ka asaasmayo su'aasha 11aad waxay leedahay meshing curing period foundation and before it's filled with soil had iyo jeer foundationka marka la waxeeyo ee footingiga la sameeyo RCC elementiga la isticmaalayo foundationka waa marka inta la kuyur gareeni waa inta in leg intaana carrada meesha lagu rogin ilaan carra lagu rogaa carrada compaction baa la sameeyaa guriga intaana compaction ka la sameeynin foundationka marka la waxeeyo ee baarkii waxa la waxeeyo inta la waraabinayo marka jawaabtooda curing period of RCC element foundation 77 badan kala dhaha when casting beam generally whenever we wanted to stop casting the beam hadiya jeer waxaan marka castiga beamka ku jirno waa su'aasha la 11aad recommended to stop casting around the midspan baa la wariyaa hadiya jeer waxa la wariyaa in lagu istaago sababta laakiin way ba taala and we are supported to stop and why marka sababta why ba meesha taala what about column kana why marka su'aasha noocan marka aad akhrido jawaabteedu oo kooban and because there will be maximum moment at midspan in lagu istaagin maximum momentum baa jira laguma istaagi karo hadiya jeer maadaama hadiya jeer momentum bartanka uu ku badan yahay laguma istaagi karo marka hadiya jeer waxa lagu istaagi karaa erjiyada and we stop column at the midspan kan ku istaagnaa column-ka isagu because auto xayta column leftiis waa compression weeyaan xagga hore L/4 xaga labada erjiga waa L/4 bartankana L/2 baa la dhamaa meelahaas hadiya jeer laga sameeyo isaga laabka su'aasha 13aad waxa leeyahay what is the minimum number of main steel bar profile RCC rectangular circular hadiya jeer markaan biraha reinforcement-ka column-ka aan isticmaalana hadduu rectangular yahay waxaan gelinaa 4 bar hadduu circular yahayna 6 baan isticmaalana when does RCC column treat as long greater than marka 30 cm hadii uu ka badan yahay baan dhigi karnaa hadii kale waxa jira formula kale oo lagu jeegareeyo formulada lagu jeegareeyo waxay dhahdaa hadiya jeer effective length-iska ayaa loo qaybiyaa ratio-ga uu wato ratio-ga marka dimension-ka column-ka loo qaybiyaa hadiya jeer dimension column-ka marka loo qaybiyo hadii uu 12 ka weyn yahay hadiya jeer waxa la dhahaa waa long column hadii ka yar yahayna listiga loo qaybinayo marka dimensions waa dimension-ka hadiya jeer waxa la dhahaa isagana waa short column waa su'aasha kale ee muhiimka hadii inta ka baxsan su'aasha 15aad oo ta u dambaysa waxa weyn why are vibrators not using concrete compaction in building work maxaa loogu isticmaalin and there will be cost and offer and completion takes place wasting of economic weeyaan su'aalo marka 15 kaasaan soo qornay su'aalahan interniga hadiya jeer marka hadiya jeer su'aalaha noocan oo kala ah ayaa lagu weydiin karaa hadii aad wax su'aal haysid commentiga ayaad noogu reebi kartaa waxyaalaha ay bixisatay building construction design waxa kamida
waxyaalaha barashada software-rada sida AutoCAD ko kale, ArchiCAD ko kale, iyo taabkoo lagu design gareynay any kind of structure sida G+2 3 4 ilaa 5 wixii la midma water tankiga sida loogu design gareynayo isagoo circular isagoo rectangular isagoo guriga dushiisa yaala marka waxyaalahaas oo dhan ayaad ka heli kartaa wixii tala bixina iyo waxa marka commentiga hoosta ayaad ku reebi kartaa marka su'aaluhu waa nooca marka wixii marka su'aale aad hayso adiga jeer waxaad ku reebi kartaa hoosta marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaas inoogu joogi cashirku